Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Somali Code. Aan barta kaga leeyahay YouTube-ka. Asxaabta waxaan jeclaysanay sidii hore nagu socotay casharada noo socday inaynu insha Allah gali doono lectureska inaan sharxi doono oo aan hore u sii wadi doono T Smart Company aan u bixinay application-ka kan waxaan sameynay header baan sameynay insha Allah headerkaas inkasta aanu tagi karin home because of wuxuu noo celinaya login page-ka waa inaad ruleskan hore idiin sheegay ama u soo baranay sida la jirkay ka horeeyay aan soo baranay oo u ogolaanay u diidayo inuu uso soo galin qofka home-ka marka waa inaan registration sameysano Muhammad Ali last name-ka halka kan ayuu baahan tahay Bilal halka kan waxa weeye Muhammad Ali halka kan apc@gmail.com 1 2 3 4 5 6 dalka Pakistan gender male 19 August 2002 markaan dhaho real sign up was inshallah waxaan rajay doonaa in ay isbedeli doonto yes loading buu noo sameynaya success iyo registration successful welcome okay marka waxaan sugaynaa intuu na geynayo meesha marka sida caadada noo ahayd haddii aan tagno localka haddaan tagno serverka ama php ma admin-keena new company userska ka doorano data noogu jira sax marka haddii aan saas dhaho validationkii uu qabanaya qofku ma tagayo haddii aan khaldo wax xun ma gelayo weli uu diidan yahay haddii aan emailka khaldo wax dhan saas dhaho uu diidaya that's it marka waa in aan ku galo kii saxda ah marka haddee redirecting lagu sameynaya home page-ka magacayga ka soo baxaya marka waa ka kan header-ka aan sameeyay wuxuu ka kooban yahay halka kan magacayga ka soo baxay hadaa magaca Muhammad Ali Bilal aad fiirisid halka kan Muhammad Ali Bilal ba ku taal saylaadkiisa meesha helad galay so marka halka kan magacayga ka soo baxaya markaan dul maro profile ayaa ka soo bixi doona marka dul marid la sameynayo qoraalka yarka profile-ka meesha ka soo baxaya iyo friend request-iga messages-ka title-ka ka soo baxaya meeshaas sida loogu daro baan idin tusaya xitaa notification-ka logout-ki marka waxaas aan sameynay insha Allah waxaan ku dari doonaa settings-kan ku dari doonaa oo aan dhigi doono setting-ka qofka privacy-giisa notice inuu qoro karo oo kaligii wax ku save gareysan karo uu ka akhrisan karo in wax page create karo company inuu kusoo xiro karo insha Allah waa baari doonaa waxaan ku dari doonaa in qofku oo link-ka kan application-ka kan uu ka dhex sameysan doono e-commerce shopping uu ka sameysan karo kuna xayeysan karo insha Allah halka kan waxaan ka soo saari doonaa dhinaca kan midig waxaan ka soo saari doonaa online-ada ilaa meelaha kan aan dhexda intaas dhan aan postiyada iyo commentiyada iyo wixii dhan ka soo saari doona insha Allah marka halka kan search-gii weeye waana responsive telephone markuu noqoto saas uu noqonaya marka intaysan telephone noqon saas weeye marka telephone-ka la soo gaaro halka tablet-ka marka la soo gaaro halka saas tan ayuu noqonaya marka telephone waa loo isticmaali karaa halka kan ayay ka soo bixi doontaa search-gii waa kaas qofkii title-kiisa waa kaas profile-kiisii home iyo friend request-kii message-kii logout-kii wixii marka qofka uu telefoonka caadiga telefoonadena sida Samsung-nada iPhone-nada saasna noqonayaan qofka halka kan ka tagaya caadi uu isticmaali karaa marka insha Allah marka waxaan idin tusayaa marka code-ka kan ida tayarta aan ku qornay wax badan ma aha oo wax yar hadii aan iska xiro kan script-kan iska xiro waxaan tagayaa magaciisa waxaa la dhahaa home.php
casharkii ka horeeyay ayaan sharaxnay koodhka yarka ah haddii aadan hadeer nagu cusub tahay ama aad daawanaysid lectureka ugu dambeeya please waxaan ka codsanayaa dib uma noqon karno hadeer ma sharxi karno inaad lecturekii ka horeeya soo daawatid iyo lecturada ka horeeya saa u fahantid applicationka kan ku socdo aad adigana ila jaanqaadid qaabka loo sameeyo iyo qaabka loo keeno applicationada sida loo sameeyo inaad baratid marka inta tan waa ila fahansantiin dadkii la socday insha Allah xagga kan waxa weeye waxaan samaystay sida caadiga ah HTML-kaygan kusoo xirtay linkiyadeedii sidii bay ugu xirxiran yihiin navbar baan samaystay navbarkaas navbar kaliya kuwada jiraan ilaa waxa kan end navbar of home containerka halkaas ku dhamaanayaa containerka container field-ka ku dhamaanaya containerka halka inkasta aad u isticmaalay bootstrap-ka navka waxa weeye bootstrap classes baan isticmaalay waa navbar inverse oo class baan ku darsaday aan style-kayga ku saxsaxay style-kayga aan ku quruxsaday oo aan style-ka kan aan ku darsaday dan class-kaas in soo waa class-kaas weeye class-ka kan okay marka container field baan yiri okay container baa hadana furtay navbar header oo ah header-ka caadiga ah button-ka kan oo saatan ah saddexda span ku jiraan wax kale ma ahan oo marka la soo dhaweeyo waa kaas weeye saddexda span saddexda navbar-kaas icon-kaas weeye that's it marka kana waxa weeye logadaas weeye logada tan weeye logadaas weeye kan collapsiga kan id navbar form search key form key weeye form intaas ii qabanaya form kuna meel kale maaha waa search kan weeye okay marka waxa weeye form group key weeye input group sida caadiga ah hore soo aragnay waxaan isticmaalay cleviconka bootstrap-ka ee search ka isticmaalay input key kana waa kan marka diffka kan xaga ku xirmaya marka formka inta kaliya ay ugu jiraba formka insha Allah edges baan ka soo saari doonaa sida caadiga ah Facebook marka qoraysid oo qofka dadka options ku siinay dadka u baahan tahay ama marka qorid wixii ay ka bilaabanayeen inay ku soo baxaan insha Allah waxaan sameeyay URL oo xaga igu xiranta insha Allah oo halka kan igu xirmanta li waa ku jira waa ku sii jira marka waa kuwa kan weeye marka dul maro profile-ka friend request-ga xaga ka soo baxaysa xaga ka timi waxay ka timi li waxa igu dhex jira style-ka arag css waxaan siiyay internal-keeda marka href-ka kan oo meesha aad iyo hadhow profile-ka kan hadii aan fiiriyo ku dhufto halkaas maxaan ka arkaysaan profile.php marka waa meesha ka sameey doono qofka profile-kiisa waxa ka habaabay doono title baa siinaysaa waxa dhex siinaysaa waxa la yiraahdo title-ka halkaas ayaa macnaheedu profile hadii aan rabo title-ka magaca caadi ah ka soo saaro php-da tan ayaad qaadanaysaa halka kana paste ku dhaysaa waxa kale maaha markaan fiiriyo hadda waxa weeye waa profile soo markaan refresh dhaho page-ka magaca oo dhan baa dhameystiraysa baxay Maxamed Ali Bilow kaas that's it marka waa kaas intaas weeye image kan waxa weeye hadii aan ka jabiyo hadii aan ka jabiyo image-ka magaca waxa igu jira saad arkaysaan xaga kan space yar baan siiyay waa space-ka u dhaxeeya image-ka iyo name-ka yarka ah marka image-ka kan waxa weeye hadhow waxaan ka dhigi doonaa qofka profile-kiisa u saarsatay dynamic baan ka dhigi doonaa insha Allah hadda waxa igu sii jira default igu sii jira oo sawirka yarka ka saaran marka php-ga kan dadka lecture-kii ka horeeyay la socday way fahmi karaan meeshuu ka yimaaday wuxuu ka yimi name-ka kan wuxuu ka yimi f name-ka kuwaas username waa sessionadeedii weeye aan wado waa qofka online-ka leeyahay oo qofka online-ka meesha soo galaya hadeer online aniga
هذا قف كلا كسو قاليو ويسبدل يا نيم كقف كاس نيم كيس يا سو قالي دونا مركا أجانا مريني marka magaca ka soo baxay halkaas marka home waa home ka kan waxaan isticmaalay icons baan isticmaalay icons kaas waxa weeye dadkii lectureadii ka horeeyay ila socday way fahmi karaan font awesome icons baan isticmaalay haddii aad font awesome ka ku wararsan tahay hadda la qabsatay please lectureadii hore dib u daawo kadib adoo fahansan ayaad hadda imaan doontaa kaasaan isticmaalnay ayadana hadana isticmaalay sidii wali waxaan isticmaalayaa waa title message title friend request markaan dul istaaga gareemin kada friend request halkaas ka soo baxaya waa halka kan ay baan isticmaalay oo ah userska waa friend request-ga userska saaran way titleska san isticmaalay inta tan waxa weeye iconskaas weeye iconska xaga yaala marka بسم الله أيضا حاجة كان يعلى log out كوكاس log out كمركان كله فتمحو وبحايا قفكو log إنك login يا لنجر كاس يوجس شلون صار لجنة log out كورد مثلا ما أهم إنتاز أيوها تفهم كيسا وبهان تاي أصغنا لكتر كي كهري عندي جنة إن ديد أم ديد ورعدي إسكودي مركا واكو كاس تجيب step by step أنا صعدنا تجيبه صيام application كل ما يستدونا وواحد أكيد دونتان إن شاء الله application كان full إن شاء الله هنجعلنا حتى إن online كصديق دونا إن شاء الله نادي أن كقول قارنو إن شاء الله يوجس وحن online كان بعد كان يوجس وحن قدر دونا إن قفكو وسميسن كرو page أوري كرو page كاس وكوجنا سكرو e-commerce كريجا كرو shopping كسر معناه e-commerce مركان كله هاي سوق online عمله كله email لقى سوق يستو أو كحيزيو كسوقات وحليه هاي قفكو campaign كله هاي سيدا campaign إنه كحيز سيدا هذا الأركتين Amazon أو كله Alibaba application كيسو أو كله ساسو كله أيات ميجتن بحدة تنتي smart كده هذا أيات كسمة دونا قارب بانقول جدونا كليجيت وحصلنا إن شاء الله وأن إذن بردونا وموضوعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبادي مرسدحات وحان إذن كعسانيا إن آد سبسكرايب سيسان أصحابتنا اللي وداتان هدي أوعون كفهمتي كليها سكوبين لا أقول ولا كاينو كفهمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليز شير كاكي إلاول لاقي كومنتيا subscribe markaan leedahayna please kan kale ku soo bixi doona ku dhufasad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee Somali Code waxaan soo gali doono aad arki doonto insha Allah biidin Allah ta'ala kareem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh